gabadhiinii Nasiin Dhaqane Cabdi musharaxii u taagnaa Mandera East anigoo hadda maanta idinka soo salaamayo Wajeer waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wajigayga ka dareemaysaan aan la dhoola cadeynayo waxaa ka mid ah horumarinta dowladda ee noo keentay awalan ilaahan rabaa inaan mahad celiyo alxamdulillaah waxaa noo suurta galay ama noo hirgalay arrin aan weli hore u dhicin Northern Kenya oo ka mid noqoto waddankeena weyn oo ballaaran oo Kenya ah annagoo naloo qaato dad awal ahaan jir A o B oo maanta priority ku yahay ajandihii dowladda oo weliba development weyn helay ayaan maanta rabaa inaan mujtamac meesha walba joogan Soomaalida u sheego Wajeer maanta waxay dareemayso keligood ma aha annagoo dhan la dareensan annagoo dhan la faraxsan guusha waa wada leenahay waxa kaliya oo maanta aan aad ugu farxay oo ka helay waxay tahay dowladnimada markay ku soo gaarto haba ka soo dahdee hadda waa 63 sano ayaan u dabaaldegaynaa marka dowlad markay soo gaarto meeshay ka soo gaarto waxaan leenahay alxamdulillaah maxaa yeelay haddaan nahay Soomaali haddaan nahay Northern Kenya dad gooni loo riixo ama gooni loo ilooban u bandaan jirnay laakiin waxaa yimid madaxweynena ogol dadkeeni ogol horumarkeeni ogol inuu waxna galshana ku faraxsan oo weliba geesaha laga heesto la leeyahay maxaa waxaan ugu sameynaysaa Soomaalida marka halka baaqaan diraya waxay tahay ninkan annagoon soo dooran 2022 ayuu noo hiiliyay xilligan u baahnayn annagana xilligeeni inaan ka soo baxno taas waajibna saaran waaye 2 term umada kale markay leeyihiin anaga 2 term oo wax la taabta leh ayaan haysanaa dan Soomaali nahay marka meel walba qof Soomaali joogo ko horta waxaan ku baraarujinaa kuraha in la goosto kadib dawlad ku rabto aad gacanta qabsatid horeyna u socotid madaxda Northern Kenya guul weyn oo soo hooyatay stadium weyn maanta Wajeer laga dhisay waan soo arkay aad iyo aad u qurux badan yahay 10,000 oo qof meel ay fariisan karto waa meel aad iyo aad loogu farxo waxyaabo badan ayaa hoos imaanaya marka magaalada uplifting lagu sameeyay infrastructure badan oo la dhisay wadooyin badan oo la dhisay wallahi Wajeer quruxda ee leedahay waa mid horta aan leeyahay maasha Allah ilaahay ha ziyaadsho county walbana way soo gaaraysaa mashruucana rajaynaa leadershipka hadduu tooso dawladda haday ku ogoshahay micnaheedu waa aragnaa Wajeer aan ka dhex aragnaa taas hadaan ka soo gudbo mahad celinta madaxweynaha hadaan ka soo gudbo baraarujinta dadkayga aan ku baraarujinayo inay madaxweynaha doortaan hadaan ka soo gudbo waxaan si gaar ah rabaa inaan dhaho ku dhoosto reer Wajeer aniga waxa moodaya maanta markaan imaanahay inaad marti iga dhigaysaan oo leedahay doono aan ismartiyeen doono aan xishoon doono moodaya laakiin waxaan u imid dad wajiyo furan qalbi furan wallahi ma dareemayo inaan marti ahay waxaa moodaa hoogayga labaad inaan imaaday taasna waa idinkaga mahad celinayaa soo dhaweyntiina aad bay qurux badan tahay una ballaaran tahay marka soo dhaweyn noocaan oo kala ah weli horta ma arag inkastoo iska ahay gabar reer Mandera isaga badan oo dadkeeda iska dhex joogto laakiin waa in la sheegaa wanaaga aad noo tarteen qodoxba dadku soo dhaweyseen waad mahadsantihiin waana idin soo laalaaban doonaa midda kaliya aan ku tarsanayo waxay tahay anoo reer Wajeer si amaanaya waxay tahay dad isku duuban inaad tihiin waxaan idinku baraarujinayaa inaad saan ahaataan wanaagana wadaan Britana waxaan rabaa in madaxweynaha si fiican loo soo dhaweeyo garoonka la soo buuxiyo shucuurtiisa aan bedelno wax badan aan ka daawanay Madaraka Day Nyayo Stadium waxaan rabaa Nyayo 10 times inaan ka dhigno Wajeer insha Allah waxaan rabnaa kalsooni horta waan siinay oo magaalada si qurux badan ugu soo dhaweynay laakiin waxaan rabaa inuu noo xiiso mar walba meel kala jiro inuu dhaha dadkayga Northern Kenya u baahanahay inaan tago guushan anaga dhan noo soo hooyatayna waxaan leeyahay insha Allah stadiumadan oo kale inaan ka dhisno Mandera inaan ka dhisno Garis inaan ka dhisno Jara inaan ka dhisno Marsabit Isiolo all of northern and northeastern of Kenya inaan ka dhisno waa suurtagal waxay suurtagal ku noqonaysaa Ruto ha noo soo noqdo 5 sano 5 sano kale sanad walba waxaan ku xijeenaynaa inuu noo dhiso stadium kale hadda intuu dhimanna waa codsan karnaa marka inaad ku fogaado ma rabo almuhiman waxa waaye waa joogaa waa ka soo qayb galay dad madaxda dhan way joogtaa and on their behalf intaanan camera hor imaanin waxaan idin leeyahay mahadsanidin
intii joogtana waxaan leeyahay soo dhawaada dadkayga reer Mandera Eastern waxaan idin lahay happy Madaraka Day in advance tomorrow insha Allah